qajeelan ku sidee jacaylka markaaga qaado weliga ha dhigin qardhaas weeye ha furin adiga qaban qaabe hablaha waa lala qoslaa miyaa lagu qayliyaa sida qarankeeni dumay anigu qalabaa geediyey qardoofad igu dishee maxaad igu qoonsatood qiyaamaha ii tustaa hablaha waa lala qoslaa miyaa lagu qayliyaa hablaha waa lala qoslaa miyaa lagu maya صوت ايش على صوت معي ياسين kusoo dhawaada xalqadii koobaad ee halkaraan podcasti waa barnaamij aan ugu talagalay inaan kula sheekaysano haldoorka bulshada Soomaaliyeed nimco waa haldoor faneed waxaana u xulanay ama aan u dooranay inay noqoto shakhsiga koobaad ee dhanka fanka hidaha iyo dhaqanka iyadoo iba furta barnaamijka halkaraan sharaf bay noo tahay inaan nimco halkan isku wareysanayna caawa kusoo dhawow halkaraan studio iyo halkaraan podcast sharaf weyn ba ii tahay sharaf weyn caawa anigu jecelahay wixii hore u socda dhalinyarada hore u socotay inaan gacan qabto runtii aan ku sheego said ma wax aniga aan goostay anigu aan gaaray wixii horumar doonayay hore u socdaan dhalinyarada inaan gacan qabto oo isbarbar taago oo qayb wax ka qaato kugu gaar caawana diyaar baan ku ahay aad iyo aad sharafna way ii tahay waa ogahay nimco inaad tahay maaragtay qof aad iyo aad u qiimo badan isla markaana bulshada Soomaaliyeed garab istaagay ummad badan gacan qabtay haday tahay dhanka fanka iyo dhanka arrimaha kale iyo taageerada shakhsiga intaba waxaan doonayaa inaan dul istaagno nimcoy way joog baa tahay wax badan og fanka Soomaalidana in badan ku dhex jiray isla markaana taariikh badan la socda in badan oo maaragtay bulshada Soomaaliyeed kamid ah qalbiyadooda dhay ama heesahaaga fankaaga mucdale ay isku dhayaan oo ay maaragtay macaashiqiin fara badan jecel yihiin heesaha qaar aad qaato arrimahaas aan jeclahay inaynu dul istaagno oo taataabano waxaan jeclahay inaan ka bilowno bal riwaayadihii hore waynu soo gaari doonaa fankan dambe iyo heesahaaga dambe cusub bal riwaayadihii aad qaybta ka ahayd iyo waxaad ka xasuusato riwaayadii goortan ku soo baxay horta 86 ayaan riwaayada qaaday waxaan ka qaaday xamar waxa iska lahaa Maxamed Saleeman riwaayad oo dhan waxa uu dhigayay kooxdii la oran jiray baka kaawa la oran jiray markaan baxaynay waxa la oran jiray seeka jacaylka heesa badan baa ku jiro aad macaan oo anigu atirsha ka aniga markaas fankaygu horeysay halkan aan ka qaaday waxaan geeyay ilaa iyo gobolada oo dhan ilaa Boorame haddana waxaan ku soo celiyay xamar waana markii ugu horeysay fan aan masrax koro oo aan haddana koox aad iyo aad musician u aho baka kala oran jiray halkiisa markii aan soo noqonay durdur bay la baxeen oo de fantastic aad u macaan oo musician de qarana aan waxaan matalayay gabadh yar oo fududoo maartay ragana guur bay rabaan marka dhalinyareenayay guurkan marka saas u fahmeen ayaan ku metelaya riwaayada waa garta marka Shamaali baan isku lahayn oo caashaqaya Shamaali Ahmed Shamaali deedna aniga course bay soo baxay London waa garta markaan ka baxay secondary deedna wila sii balamay guuran ku leeshiyay deedna waxaan ku waa hagaag marka de corresponding soo baxay markaan course ka soo dhameysto oo labada sano de aqalgalkeeni waa garta halkan baan Ingiriiska ilaahay way sii qornayde Ingiriiska markaan imay Maxamed Saleeman oo la yiri Somali week baa la keenay ila Somali week aan kuntu 40 sano waa jiraa doon ka badnayn waa la socdaa ayaan lagu ardayda jaamacadda waxaan idin doonaynaa inaan caawo fanaakiina boqorkiina ilaahay wax xariistintii mataba inaan idin keeno idin tumo idin heeso oo daawataan farxad bay noo noqotay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed waa nahay waa garta Maxamed Saleeman ma saxay soo kor heeso yaabo qaaday aan waan jeclaaday ila warwad intileenay kolba masraxan ugu kora kolba masraxan kolba xil baa lagu geliya kolba masraxan kolba xil baa saaray kolba deedna waa ka helayba ninka jeclaa waxaan ku wada waxaan dhaafsanay adigu de geeraaro
markaasuu yidhi dee simina ogsiinay laakiinse boon balnay waynoo ballan kale garaaro badan baa jira waa soo gaagaabinayaa yaa mar haddii si ahel arli shisheeye joogna buu yidhaa bakeen ayaan ahay amba qaadka shirkaduusu waynoo ayaan kale aan ballanay waan garta dee markaasun baan dee nuurkii indhaha iyo naftaha raaxadeedo sidaan kugu nugulahay niyadahadu ma ogtahay kasida amba nabarka caashaqu inuu igu nagaadoon nolosha balaanta inaan nacayo moogtahay iscaan kasan wada qaadnay heestaba waxaa ila qaaday bk way qarxay beri dhaweed aan argeysa joogno iid markaa ila soo cusboonaysiiyey haa heestasan wada qaadnay deedna waxaan ku dhintay waa kaasoo dee waxaan u diray markaa shamaali markaan soo wada dhoofeynay dardaaran weyn baan kaga yimid waxaad ila bili tahay beeraha wajaalo intuu roob barqadii helay balliyada hareedii togagii burqanaya ha burburinin wacadko dawan isku sii ooyeyni aniguna dee eerboodkii buriga la culuside caawdi bilaa markaas isna leeyahay bidhalatiyo cadceed soo baxayso bilicdii hilaaxo bidhaantaada weeyaan tan jacaylka war anagoo isku ooynay dhalinyaraan hayne oo guurku leeshayna ka tegay soo moogid heesaan sii wada qaadnay ninkan baan ku dhacay soo maaha isagii baan haddana warqad u diray waxaan ku uri walaalo hay sugin iga raalli ahaw barashadaadii booska qaada la surin jiray beriga hor moogta yaa barashadaadii booska qaadana qora dhalinyaranimadii deedna marka warqadii saa u akhristay hadda waa ruwaadii baan ku jirnaa ogow masraxu dadka wana wada daawanayaan waa ruwaadii ugu lacagta badnayd cajaladii ugu qaalisanayd baa hayd waanu ceelkaan sii maray aniguna haa markaasaa deedna waxaan u diray warqadii markuu helay uu masraxii yimid dee miiskiina meesha loo taagan buu akhriyay miisig baaba ku yeedhay bahaleesaabaa loo tumay fikiriyo naftayday filan waagan igu dhacay fiintuba haalooyde feedha bidix wadnaha sudan tii jacayl ku fidisayba fulin weyda igu xadikii halkaasu bilaabay shamaal aad baan u salaamayahay gabdhe walaalkay deedna calaa kulli xaal anigu saasaan fankii ku galay xidig waxaa noqoday atirshad dadka oo dhan baaba yaabay meel yaro xafladood soo gaagaabinayahay gabar soo dhoofisay ayuun baa laygu arkayo bal yaa iga reeba maxamed salaamiye iyo hanuuniya deedna maxamed saleebaan waxaan soo baxay wuxuu ku soo noqonayay wadankii isaga way u dhammaaday intuu fiisadiisii anigana waxba barbaa ii harsan oo sii joogaya markaasaan de hees ilawaanaan doonayey markaasaan haddana hees cajaayiba ku siif maca salaamiye haa kalgacayl ka halistiyo hadimada ka dhowro hadda laabtaygu hay silay waan ku haweyno inaan hagaru geysta waa habeenkii xal caawd bila daadu calaa kulli xaal aakhirka marka ruwaadii aan aniguna qurbihii wadankii ku noqdo waxaan kusoo dhacayaa cidlaan kusoo noqonaya nin askari hooyada yaabahay oo la dhacay hantiduu soo celiyey baa la siiyey kiina xaasas badan buu lahaa kiina waabu hees jacayl hees ugu daadinayaan soo qaadnay maxaa la isku luraya uu leeyahay la ismaba yaqaane lahashii xanuuniyo lulbayguma hayside waxba ha isku kaylul dee waaba sana wabiigu daadiyeyba waxaan siri haddaba ninkii inakeeray ardayga ahayd isu iskuulood kaayadeen beenta u sheegteed kaga baxda kii cagaa qabso shamaali baan dib ugu noqday markaasaan yidhi waan soo ardaa galay markaasuu yidhi sodiga nagu guuriyey markaasaan ku yidhi guriye noqo jacaylkii markuu yidhi sodiga gunta u jaray markaasaan jacaylkeena duba baar doondooriga ahaa sugna adigaa daleeshii dabadaa ku tuuray doondoor halku jiro saan diiwaanka ii baadh suri dambiiraad ku dhigantahay dib ma weeshiina dambigaan kaa galay ana wadaadi soo celi wala war istabaya ana war isdiri naama istila ma istabarkii buu kana iga dhaqaaqay cidlaasaan ku dhacay
قرن كبر عليك بدها أي كل جاي ها قول بترول قاعد يسكون بابلي يقول ربعنا هذا يكون طالع تيلا بعد نوحي هيدين شكرني شيء إذا تيلا بعد هاي وذي وحلون شري قاقها أيالها أوكي أبوه وينه oo ruwaydaha heesaha badan oo badan xaragii kisi qaad jireen unkad buuxa kooxda liirado ruwayda santana qaaday waxaan geeyay iyadana tambuure ma ka soo celiyay tan ila ceergaaban geeyay aniga laftaydu dalxiis ba ka dhargay waa fogaaday marka waxa ku jirtay heesa badan ba ku jirtaa aan qaado waxa ku jirtay heladu heladaydi ka halima hello taasi ku jirtay ruwaydaas waxa kale ku jirtay heesa la qaadado hibibiyo idaaran dhiilan qoriyo ahayni heesa maxaan ba ku jiray tii saddexaad ba ku soo hadhay tii saddexaad cilmi caado ayaa ilaa u naxariistay baxsan baa iyadu adirsha ka ahayd marka ay tii sevenkii ayaa waxaa la doonayay in ruwayda waqooyigaas laga soo dhigay video baa laga sameeyey UNCR iyo group dad baa wada oo waxa weeyaan UNCR iyo qolo ay iska lahayd waa beriya cid shaqo kuma lahayn lacagta wax walba iska lahaa baxsan marka iyadu xoogaa problem ay sheegatay anaa lagu bedelay waa kama dhiyarada tayara khatartaha balaayada ah inoo keena taas waa khatar dhagdhag oo tala yeedhay guriga daliisley geela oo ku naxariiso ruwaydii waan xafiday 7 days baan ku xafiday baraa waan ka bilaabay markaa waa markaan koonfur la soo bartay dalxiis baan ku jiray ugu weli wadankayga baan baranayaa wadankayga hooyo yaa halkaasaan ka bilaabay jimri jaamacadka meeshii sokorta webi halkan ka raac xagga kale lagu gudbiyo aad waxaad keligooye ayaan ka soo dhignay waxaan metelay markaa booskii baxsan anigu horeyna uma guursan haddana guur dooni mayo kul ilaa ku naxariisto cilmiga caado marka aad jilayseen isbedelada dhaqanka ee abwaankaasi marka u muuqday uu ka hadlayay iyo waxa maanta jira bal markaas barbar dhigto wuxuu ka hadlayay waxa imka jira wad aragtay marka bintu Umar dhakhtarada leedahay ma naas kama siinayo naas aniga jeclahay ankaas la isma maqleen hawlahaas uu abwaanku marka ka hadlay waxay ka hadlayeen oo dhan waa waxan imka dhacay ay arkayeen waxan imka dhacay oo dhan yaa abwaanadii hore dagaaladii albaabada iskaraaci waxaanay noqon duumaysa waa sidan xoolo wada dhaxeen wadada lagu jiro dadkaasi waxay sheegaan abwaanintu waa wax la arko hees haduu sameeyo heestaasi ama isaga khusaysaa ama adiga khusaysaa ama aniga khusaysaa ama taas ba khusaysaa bulshadii si fiican qof baa iska dhaxarka qof walga imanaysa ku socoto laakiin saanu yidhi baan waa sii deynaya maybe khusaysa maybe khusaysa laakiin sidoo khusaysa qaadiya xasuustaada Djibouti iyo riwaayadii aad ka samaysay iyo safarada Djibouti ku soo koray aan 3 jir leegay kartiis baan ku koray afar jir baan macaamid leegu geeyay ma sha Allah oo magaalaan ku koray ila 8 jirkeygii baa laga keenay dal sheekh lay keenay qofku ku koro uu jecel yahay said ciidu ajaybe ha wallahi waan jeclay dadka Djibouti oo dhan waan jeclay saan soo dhaweeyo saan oo la 2000 كيمياء هدمسي 2002 أنا خضرت طاهر لأكون حريصو يلو تنفر دوسكا ورابي آمين قبيهم ولا شيء قالوا بيهاد وحان تغني جيبوتي اسماعيل سنة تقولي ما وحان تغني الدواي حفظ بانو كدغاني واكو قدبني أنا يكل عيا خضري ديدنا هركيسان تغني حفظ بانو كدغاني ديدنا وحانا مقلي ريش جيبوتي aniga marka fankan ku cusbahay dosa uma qarxin wala yaqaan laakiin saas hada wadan kaga shaqeynayay Soomaaliyo dib waxa garanaya dadkii hore dadka dambe ma garanayaan heesun bay garanayaan laakiin si fiican khadro kale ma tiidi stage khadra joogtay kula aha ma lahayn si fiican orosku waxaan ahaa saarada weeyo si fiican saas u garan kartaa kadib Djibouti tagteen Djibouti waan tagnay
ما هو توال مقروح لا والله هس جبت هسنا هس هلا دو هلا ذي أيها كسعتها أو هيستها أو قرحة تاس أي قرحة موقتي سالي كوني كهبلا هلا دو هلا ده هبلا سمايل خاطها يخسرتها يكون هركيسي جوا تواتنا دالنا نورسين كركري شن قرودي اسمعي بالقط ما شاء الله سفي عن وتم قرودي كأنت هذانا ليا أنا جيتشوبها هذا قد جبت مقاليدي abwaanintii waaweynaaye hore ee fanka ku jiray waanintii hore inta aad soo wada shaqayseen heesahooda qofka aad ugu badan tahay aad qaaday intaad ka xasuustay heesaha uu sameeyay Abdullahi Diri Sooraan Allah u naxariisto Allah u naxariisto heesay ku dhan sagaalay loo jin fudusa ka waraa Sooraan heesay ku dhan qalbiga suuba salaah habeenkii ku seexiyo naftana sasaabo ku iri sakuku imanayay Allah inta samiri ya helaya waxa kale maya bohinitiisay qaarigu la yaabeen yelkooda aw sidii xawo kalaan anigu ku xurmaynaya away dhisma noloshee midnimo matana hawada dhasha sidayagu wada dhaqmaan ayaynu dhabtiinahu naftayda labaan ka dhigay dhanka midig waa aniga dhinaca bidixduna adiga dhexdeena wadnaha ku yaal dhigu ku socdaynu nahay sidii dhulka geed ku yaal ayaynu isugu dhegno rudda qudhabaynu noo ma kala dheeraan kare jacaylka ku soo Sooraan ilaahay u naxariisto Sooraan iyo dhammaan abwaanintii kale waa weyn Soomaaliyeed inta bad qabtana loo siyaadiyo wada shaqaynta adiga iyo hanuuniye bal inta hanuuniye waxaan soo dhignay ruwaydan cilmiga aad shamaal intaan xagga ay waqooyi la tigin iyo koonfurta xaggaas marka loo socdo dhinaca Hargeysa si fiican xamar laga tago ayar sagal laakiin markii ugu horeysay xafiday hanuuniye silhiisin si fiican waxa ku jiray unkooda iyo waabari bay haayeen kismaayo la geeyay markaa ilaa inta jidka la sii maray la kismaayo kala soo dhigay heesan haburba kala xakiisaga sameeyay hanuuniye waxaadii la bilitaay hanuuniye la qaaday kismaayo markaan ka soo noqonay ya hanuuniye isku shaw akan tiyaatarkii oo loo baahday inaan safarkaas shaqo haray booskiisi waxa galay shamaali markaa waan gartay abwaanin badan baan soo wada shaqeynay masha Allah horta markii baan iska wax qabsamaan marin si fiican tiyaatarka waxaan gabadha kaliya baan maleynay mala iska wax qabsan aan marinay hore laga shaqaaleysiiyay ya waliba skeelka uu sarey lagu qaatay abla waa bari habaamuuskii dhaqan ee fanka xilliga dhex yaalay iyo fanka hadeerto wala waxa fanaaniinta dambe iyo sida ay yihiin wada shaqeynta iyo ixtiraamka iyo qadarinta iyo horta waa fanaantiiru cid gaarisa ma jirto ilaa haddadan anaga waa beri meel baanu leenahay oo la furtay ka waa beri bukooda waa daweysanaa ka waa beri dhinta waanu aasanaa ma fahamta dikoonta markaasan ka rajeynayna inay noqdaan aaladaha idinku haysataan waxbaad duubaysaan kamarooyin waxaan baad haysataan waxaa lama haysan cajalada yar baa lagu shubaya riwaayad oo dhan kaseedka yar rekoorka lagu gelinayaa halkaasaad ka xafidaysaa midabari ismadahay waxaasle dadkii hore hadday jaamacada geli lahaayeen waxay noqon lahaayeen adduunkan bay la qaybsan lahayen weli ibli waxaan u malayn in Soomaaliyeed leela Mareykan madaxweyne ka inuu dhici lahaa si fari ismadahayen cajalada dhan baa laga dhigay riwaayad ay ka xafidaysaa intaasoo heesood intaasoo geeraad buu gelin intaasoo waad buu matalaya you can't imagine haddana xafidaadii dhag bi kadibna intaasoo heesood intaasoo geeraad bay dhag xafidaysaa waxaad ku soo ababtay oo ku soo kacaantay fanku meeshii uu qiimaha ka lahaa markaad isbarbarigto dhulkii hooye iyo qurbaha nolosha qurbaha ee dhanka fanaanka qofka fanka ku jira fanaanka magaca horta fanaaniinta ee Soomaaliya ka dhalanay marka duruufta anagu kulba duruuftayada anaga dadkaygu sii nool yihiin ayaan ku faraxsanahay haddii taajiriin oo taajiriin baan lanahay haddii faqiiriin baan lanahay inta habbi baan ku nahay aan ku faraxsanahay
hadday maanta dee adduunka isna baasroole iyo adduun iyo deeradii ibi lahay waan ogahay aniga markaan arka sii jecel yihiin oo aniga jacaylkeena jecel yihiin wuxuu nooga qaalisan yahay iyagoo daarta ugu dheer magaalada haddii ii dhisayo waxaan ka jecelay jacaylka intuu ugu farxday iga qaalisan xubba qofka Soomaaliga ha markii hore igu soo farxay limciyaas intaasaa milyan oo siiga qaalisan qofka Soomaaliga ah ee dhalinyarada ah waxa ugu fudud ee lagu gudbin karo ama lagu tabin karo afkii suugaanta iyo fanku ka mid yihiin fanka dambe waxaad moodaa afkii isaga laftiisu erayadii iyo naxwihii ku dhex jiray iyo fanaaniinta dhalinyarada ah inaan maartay aad iyo aad uga radan yihiin ma fanka gabay afkii mise afka gabay fankii maxay kula tahay raggii hore suugaan yaqaan bay ahaayeen si fiican qolan dambe de suugaantii waa ku yaar si fiican هابو هيس بس قاعدين بدون حكوا لي يسروا كذا عين حد دي وارنتي si fiican waan karta waxba ka jira arintaas أنا وجعلي ويل يرو هيسو مريكا كقلي شرما بوي وآد بنو تاجره dhalinyarada dambe hadda exact وددي سباس وقت سباستا شرما بوي waa salaamayna أمر وسعود سلام أدير هيركا جيمر ودادي بيبي جاجما جيرو تشوجا aad iyo aad waa salaamayna أول رجعيلكم كلهم أنا ودتك مرتي هيسال جستميه haye guriga heesku ma dhageysto waxaan dhageystaa haddaan u bato markaan xafidayo wax waan garta markaan xafidayo marka wax duubayo sax ayaan dhageystaa bis nimco haddii la dhihi lahaa waxaan fan ahayn dooro maxay noqon lahayd nimco haddii aanay fanaan noqon haddaan fanaan noqdeen alooyarad ma jeclaan noqdo weliga alooyarad baa jeclaa ama waxaan jeclaa bayloodadii la noqdo wana waasiyaan kan dhigan jiray saasaan cirka weegi jiray beri waan karay sheekh anagoo yaryar helicopter soo fadhiisatay qofkii ugu dheereeyey horta isoo istaaganaha iyo looyaradan waa jeclayna noqdo fanaad weliga ma noqdeen daweyluhu weysitaan duufaanadu ima dhigaan badwey bay dooniduna ila sii durkaysa halkaa malab laygu daadshay waa dushaado waxaan daydayo adiga awaanaan dahalayn dawee nabarada qalbiga dabiib bogtiya wadnaha dhalinyarada dambe oo dhan heesaha waxay kala soo qabsadeen fankaaga heesta waxaa lahaa cabdirasaaq alvo waa nin reer landhana brisab degan yahay heesahaygan dambe oo dhan waa ninka iskale wuxuu leeyahay heestana ku qaadayo hadda wuxuu leeyahay sidii ramadi geel dhalo nirgaha laga reebay baan intaa hoosu reemaya ilasban kugu raadiya cawdu billah wuxuu leeyahay qolyow naftaha abbaahi ku qabato waxaad banalayd od bogsin lahayd boku taali jirhike saaxiibkaa baxdiyo weydiiba boosh waa wiil yaraa weliba hadda kusoo bartay heestaa magacyo cajiibaa ku jira kusoo aadiibi kulata magacyadaas waxa weeyaan ujeedadu inaan ku jecelahay asxaabtaadii hebel iyo hebel iyo hebel waa best friendskiisa mogtahay weydii si fiican ninkaa laakiin best friendskiisa magacyada faniga yeelay soo madarkiin wuxuu isku soo hagagaagay intan uu dad jira waxaa jirta iyaduna hees kale oo cajiiba malyuunka roone heestaas malyuunka roone haddii aad dul istaagto bal horta heestaas abwaanka jacayb waalan bahayey xilligaas sameynayay si fiican anigana markaasaan guursaday oo anigana jacayl waalan yaa ayay hayay waad isku baroor darsateen ma la dhihi karaa markaa waan ilaahay baan ku dhaartay markii dambe si cabdicasiis way saaxiibeen si fiican waxaan moodayay inuu aniga iga sameeyey baad moodaysay isagana mid baa haysatay
mana dhacaysa weligeed ويسلا دور شيء waa hees dadka u dhimi jecel yihiin muraayadii daawashada iyo midab qurxono macaankii dunida la mudsanayo markastaan ku eegaba maskaxda mabsuudo markaad jacayl iyo muftaax ku xidhaatee acuudu billah hawaara jacaylku in bulshada intooda badan fanka marka la sameynayo wax hawsha laga maro wax badan kala ma socdaan bal qofka Soomaaliga ah ee aan maartay heesaha iskaga enjoy gareeyo isagu iskaga raaxaysto bal stage-da iyo marxaladaha uu soo maro marka wax la sameynayo maxaad u sheegi kartaa heesta abwaan baa qoraya dilxamiista soo sameynaya de miskii baa la keenayaa dan heestan idinku easy isaga dhageysanaysaan easy dadho habeen baa loo soo jeedaya laxankii baan xafidayaa ereydii baan xafidayaa codkii baan xafidayaa miskii baan xafidayaa waxaa laga yaabaa inay 2-3 habeen ma soo jeedo deedna iyadoo danaan isuba idinku dhegeysataan dhib baa laga soo maraa waa garta abwaan baa maskaxdiisa tuujinayay markaa waan garta abwaan bay soo maraysaa ereyadii sameynaya la xamiiste musician kadib ay fanaankii soo gaadhaysaa fanaankii baa cod ku ladhaya waa processkaas markaa nimco xaggee bay jeceshahay inay kala qabsato ma abwaanka inay ka codsato ereyada uu sameynayo ma abwaanintu ereyada ay sameeyaan inay kala xulato qaab noocee ay u xulataa heesaha maxay ku doorataa heesta ay qaadayso may anigu heesta markaan dhegeysto haddaan ka helana waan qaataa haddaan ka helana ma qaato taasoo wixii jecel baan heesaa waan garta anigu jacaylkan dhalay maamadii jacaylka kula fadhida jacaylka laftiisa jeceshaa fulaya waan garta marka isagu jacayl wadani u badan yihiin heeso badan oo calaacala wanaya lakasoo iska ilaaliya dadka inta badan fanaanintu waxaa weeyaan dhakhaatiir qalbiyadooda dadka dhaya weli erga jacayl ma lagula yimid weli erga jacayl ma lagula yimid oo ma lagu yidhi inantaasaan jeclahay oo taageeray ku tahay waxaan rabaa inaad hees iigu qaato anigu inta family ee isku dhaliyay ma cadadna ma xisaabna intaan u tumayna ma cadadna ma xisaabna waan garta weliba ma jeceli baynaan 2 qof oo caraysan arko balseydaba aniga carada way ugu yartay farxadda igu badan ma haddana la iskale umadaydina ilaahay abihooyiga dhigoodii jeceliya anigu loof baan ku ahay jeedkaasaan la fadhiistaa waan la sheekaystaayo oo raacayo qof iskaan balaanahay dadku laakiinse inta aani garanaya waxay haysan naag qab weyno balaaya aniguna wala iga tahay waan garta anigu kibirka naciba kibirka naciba sharaf bilaash ma bixin magacaas sharaf iyo karaamo rabbiga ku daayay maamo waxaan doonayaa inaan taasi duro caawo maantaan ka duro waan garta jaanjalaqsan wad garanaysaa siyaad si fiican fanaandina de jihaan siyaad walaalkeed baa halkan ku dhintay ilaahay u naxariisto ilaahay jina firdowsaha ka waraabiyo eheladiisii qaraabadiisii caruurtiisii xaaskiisii uu ka tegay oo dhan inta qaraabo ka timi Yurub ma malayn kartid ilaa Mareykan oo eheladiisa samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo isaga wiil waaxide aamin sidoo kale ilaahay isaga jina firdowsa ilaahay ka waraabiyo kitaabkiisana ilaahay midka ka siiyo isaga wiil waaxide aamin anaguna sidoo kale taasi taa lamid ayaan u direynaa walaashin fanaanadiina weyne jihaan jalaqsan oo ugu weyn baada halkaraan oo dhan waxaan leenahay jihaan samir iyo iimaan rabbi ha ku siiyo ilaahay ha ku boogadhayo adiga iyo ehelkana samir iyo iimaan sam ha idinka siiyo bedel khayr qabana ha idinku bedelo ilaahay bedel khayr qaba ha ugu bedelo insha allah bismillaahi kariim wala helayaan insha allah carruurta reerkuna oo badan yahay maasha allah anaan reerka ku dhex jiro waa too much maasha allah ilaahay isu barakeeyo iyo jina firdowsana ilaahay ka waraabiyo inta dhimatana allah u naxariisto inta bugtana allah u shaafiyo inta bad qabtana allah u siyaadiyo inagana ilaahay dhamanayna ilaahay nooga sii daba naxariisto anigu shaqada baan maxaad ku soo gabagabayn lahayd barnaamijkeena halkaraan waa xalqadii koobaad qofkii daahfuray baa tahay oo insha allah ummadiisa anfacda oo wax alaaliyo wixii loo baahan yahay qaylo dhaan hadday tahay iyo hadday tahay maxay caawimo iyo hadday tahay farxad baalkan aan ku gudbino ya oo noo bulaasha oo noo kacda oo noo qarxda ilaahay ka baryaynaa waan duceynaya studio-ga quruxda badan ya
adiguna noo soo noqo inay yaroon jeclaabaad ahayd kamiisahayga baad ahayd ixtiraam badan baad ii haysay taas way baan caawa halkan keentay markaa madaxaad noo saaran tahay thank you aad iyo aad baad ilaahay idin barakeeyo wasalaam calaykum aamin maam aad iyo aad baad mahadsantahay tani intiinu barnaamijka kan xiga ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegaynaa dhammaantiinba isarag maqal dambe oo xiiso leh